maamulka ciyaartooyda xulka gobolka Hawd oo goor dhaweyd la hadlay warbaahinta ayaa waxay si adag uga hadleen ciyaartii galabta ku dhaxmartay garoonka Hargaysa Stadium iyaga iyo dhigooda gobolka Daadmareed tababaraha xulka gobolka Hawd kabtanka xulkaasi afhayeenka iyo isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Hawd oo si wadara warbaahinta ula hadlay waxa ay ganabka ku dhufteen habkii ay ciyaartu u dhacday waxayna si gaar ah uga hadleen garsoorihii ciyaartaasi dhexdhexaadinayay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland iyo guddiga garsoorka koobka gobolada Somaliland ayay fareen u direen ciyaarta ka hor ciyaartan waxa lagu xeeray duruufo gaar ah oo aanay lahayn jirin ciyaarihii hore ee Somaliland ka dhacay ama tartankii ciyaaraha gobolada Somaliland ka dhacay ilaa hadii la doonayo xaaladda ammaanka la adkeeyo ama xaaladda nabadgelyada Somaliland la adkeeyo imisa gobol oo hore ayaa soo haray oo maxaa la raadayay ciyaarahoodii ay final ahaayeen maanta ciyaareen maxaa maalmahaasi waxan oo ciidana iyo waxan oo maxaa la kicin dadweyne ah loo keenay maanta askartii garoonka joogtay iyo dadkii maxaa la ciyaarta daawanayay way isleekaayeen saad la wada arkayay ama maxaa la raadayay waana taas mid tilmaamaysay in marka horeba loogu talagalay in ciyaartan xamaasadeeda la kiciyo warlabuun bay noqon doontaa wasaaradda ciyaaruhu gobolka Hawd inay wasaarad ka tirsan ay noqoto anuguna aan aqbalo in ay tahay wasaaradda ciyaaraha waxaan leeyahay wasiirka mar labaad wasiir boos waxaan leeyahay war sharciyada hal maro oo wixii sharci u yaalay wasaaradda ciyaaraha gudida farsamada waliba waxaan leeyahay war wuxuu ilaahay inagu og yahay soo saara laakiin waxaan leeyahay anigu waxaan aaminsanahay hadaan hay in badan waan soo ciyaar jiray gubadda waxaan aaminsanahay in haba yaraatee ciyaar in laga hadlo ma haba in la yiraahdo cid baa badisay amba cid baa kala badisay in laga hadlo ma aha sharciga yaala waxa weeye cid haba yaraatee guuleysatay haday dad maray noqoto iyo gobolka u tahay haba yaraatee guuleystay ma jiro waxaan u leenahay war noqon ma garoonka stadium Hargaysa noqon maayo dad Tukaraq noqon maayo waxa weeyaan maanta noo dul qaadanayno inay yiraahdaan garsoori baanu ganaaxnay ninka Kenyaanka ayaa yiraahdaa waanu ganaaxnay wax loogu talagalay waxna loogu talagalay saddex cisho ninka ka cabaadeen Cabdirashiid cadaymaan ku haynaa coda waxa weeyaan telefoonada ah inuu yiri ma qof ninka helin ma qabanayo inta kala garsoorana ayaan cusubnay imsa garsoora ayaa tartanka ciyaaraha 10 garsoora ka badan 10 garsoora kale uu noo diiday ninkaasi marka waxa weeyaan ma asmacina anagu beritola si dhaqanka u hayd inay yiraahdaan waxaanu ganaaxnay garsoorihii taa ma asmacino ciyaartii dib loo daawado gool bana laga diiday sababta goolkan looga diiday waxa weeyaan faarta waa lagu bushkaray waayay ciyaartooyada faarta dalbadeen laakiin garsoora waa laga diiday annaga deegaanka gobolka Hawd ahaaneed kamaana soo dirin garoonkii waxaan yiri faarta loo eego wiligeed ma dhicin garsoore inta faar soo eega dan soo noqda oo go'aankiisa ku sii adkaystay runtii waxaan arkaynay in bareer halkaas naloo geystay cadaana taasoo aan imikana hayno cadiimaheedii dhanka kale waxaan sheegayaa waxaan halkan ka sheegayaa taliyaha ciidanka police in maanta sidii ay police u keeneen garoonka Hargaysa Stadium in aan wiligeed loo keenin sababtoo ah waad arkayseen dhaleecan caadi ay ahayd oo la leeyahay gobolka Hawd ha loola dhaqmo si aan gobolada kale loola dhaqmin ciyaarta dhexmartay xulalka gobolka Hawd iyo gobolka Daadmareed ayaan ilaa haatan wax natiijo ah ka soo bixin waxayna ciyaartaasi socotay muddo saacad iyo 20 daqiiqo ciyaartan ayaa ahayd lugtii koobaad ee semifinalka koobka gobolada Somaliland Axmed Saciid Xasan Axmed Shimali Ariel TV Hargaysa